weli ma isweydiisay sababta ay filimada ugu bateen dumarka midabkoodu uu yahay akhtar jamiska ama maariin dhalaal xiga? ma ogtahay film walba oo ay Soomaalidu jilayso inay u badan yihiin dumarka midabkoodu uu maariinka yahay ama ay madowga xigaan? marka filimka la rabo inuu si toos ah u baxo oo weliba markuu doono uu gaadho caalamka kala duwan, ma ogtahay in markaba la ogaanayo midabkani inay leedahay Soomaalidu? waana sababta film walba oo ay Soomaalidu samaynayso ay ugu badan tahay midabka akhtar jamiska ama midabka madowga xiga ee dhalaalaya. waa midabka Soomaalida u khaaska ah oo cid walba oo daawanaysa filimada Soomaalidana ay markaba aqoonsanayso in dadkan ay yihiin Soomaali. ninka film sameeya ahi ma soo qaatay inta badan dumarka midabkooda iska rogay ama midabkooda ka dhigay kuwa caddaan ah. waxaa ninka film sameeya ahi uu mar walbaaba isku dayayaa inuu xoogga saaro inanta midabkeedu yahay madowga ama maariin dhalaal xiga. waana sababta kaliftay in filmada ay u bataan dumarka maariinka ah ama midabkoodu madowga yahay. ma ogtahay in midabkeena maariinka ah ama madowga ahi uu yahay ka ugu qaalisan marka la eego Afrikaannimada ama markaynu nahay Soomaalida? suurtagal maaha in qof walbaaba midabkiisa uu bedelo kadibna uu sheegto Soomaali. Soomaalidii hore midabkoodu waxa uu ahaa kuwa madow ah, rag iyo dumarba. laakiin midabka isbeddelka ahi waxa uu yimi wixii ka dambeeyey 1995kii, markaasoo dumarku ay u dhaqaaqeen inay midabkoodii hore iska beddelaan, taasoo Soomaalida gudaheeda ka noqotay faan inan walbaaba inanta kale ay u gudbinayso inay midabkii iska beddeshay ilaa iyo markii dambe la isku wada dayday. laakiin markan waxa u eg tahay inay wax walbaaba jabeen. waana sababta film walbaaba oo ay Soomaalidu soo saarto oo ugu bato midabkoodu kuwa madow ah ama maariin dhalaal xiga hablaha markaa filimka ka dhex muuqanaya. inanta midabkeeda iska beddeshay iyo inanta haysata midabkeeda dabiiciga ahi waa ay ku kala duwan yihiin qiimaha Soomaalida marka la eego filmada, marka la eego shaqooyinka, iyo marka la eego waxyaabo fara badan oo loo baahan yahay oo muhiim u ah dumarka. filimku waa halka ugu horeysa ee caalamku inaga daawan karo marka la eego dhaqankeenna. waana sababta midabka looga dhigo mid maariin ah ama maariin dhalaal xiga oo weliba madow ah. waayo qofku marka ugu horeysa uu filimka indhaha ku dhufto waa inuu aqoonsadaa in dadkan ay yihiin Soomaali, gaar ahaan marka uu arko dumarka. marka hore marwaadkiyo masawaaga faraxiyo muxibada haryaaqale waa mid lagu yaqaani cishqii kuma liigta maraha tabama waaye malma waxaan dareemu muddo kale idayaba manaxoo jacay